ma ogashiin min yare inaan ii noqdo adno ya adno iyo koosar sababtoo way daansanaysiin dadaalka yaa rabtiin ma fahanteen waa soo sida daawada muuqaalka hordhiciisa ka soo aragtay waa Tina Yare oo afkeeda ka sheegayso in ay mardhow noqon doonto xaaska Saxaaf ama gabadha labaad ee uu qabo ama qofta labaad oo Saxaaf minyaradiisa in ay noqon doonto hayaay arinta baraha bulshada oo aad u kacday si aan kula wadaago fadlan nagu soo biiro asxaabteena ka mid noqo adigoo janaalka subscribe dhahanayo gambaleelkana u furanayo muuqaalkana like la dhaca wixii fikirkaaga commentiga noola wadaag arinta baraha bulshada oo qabsatay saacadooyin yar kooban hadda dhow ayaa waxay Tina Yare in ay live dhankaasi Instagram-ka soo gashay oona afkeeda ay ka cadeysay in ay noqon doonto Saxaaf qoftiisa labaad ama minyarada labaad oo hadda aroosayo dadka baraha bulshada idilna ay ka sheegtay qoftaani inaba caadi inaysan ahayn saaxiibadeeda qaaliga ayaba ninkeeda ka kor qaadaysaa maadaama afkeeda ay ka cadeysatay in ay qofta labaad oo Saxaaf uu aroosayo ay noqon doonto laakiin oo baraha bulshadana hadda sawirratay kala la keenay maadaama sawirro la wareejinayay oo artificial ah oo guurka Saxaaf iyo Tina Yare maadaama Tina Yare iyo gabadha uu Saxaaf qabo oo saaxiibo lilaahi ah oo adna wada naqaana anago idil oo gabadhaasi ay baraha bulshada muuqaalo isla soo duubi jireen laakiin qoftaani qoftaasi saaxiibteeda aanan qadarineynin Saxaaf ka dhex baxay Saxaafna ay jecleed in badanna ay qarsanaysay laakiin markii ugu dambeysay Tina Yare oo sheegatay jaceelkeeda ama cadeysay jaceelba inuu wixii ka weyn yahay Saxaafba inay u baahan tahay eena jeceshahay aad u jeceshahay mar dhowna minyarada labaad uu qabo Saxaaf ee noqon doonto maadaama afkeeda ay ka cadeysay muuqaalkeeda oo baraha bulshada qabsaday YouTuber badan iyo dad badan oo baraha bulshada caanka ah ay ka falceliyeen maadaama haddana hadalka ay ku hadlayso oo laga filaynin ay gabadha oo ay hadda ninkeeda ay damcayso ay saaxiibo yihiin marar badanna ay muuqaalo baraha bulshada ay iskula jiraan ayagoo wada qoslaayo oo gabadha maanta ay isku dayaysa ninkeeda in ay ka dulqaado ay walaalo ay nimo ay ku wada dhaqmi jireen laakiin ayadana walaaltinimadii ay u jeclaatay wiil walaalkeeda oo dumaashigeeda oo Saxaaf jeclaatay jaceelka oo ay qarsan weyso oo markii ugu dambeysay live ay soo gashay ay ka dhex cadeysay minyarada labaad oo aroosi doono Saxaaf in ay noqon doonto arooskoodana uu mar dhow dhici doono qoftii kaleetana saaxiibadeedan ee ku nin la'dahay muuqaalkeeda ayaan kula wadaagi doonaa daawade soo dhawow daawade ma ogashiin min yare inaan ii noqdo adno ya adno iyo koosar sababtoo way daansanaysiin dadaalka yaa rabtiin ma fahanteen waa soo kicinaysa hallo Saxaaf iyo Maxamed laba Maxamed waa waliba sababtoo aniga ka jiifi waayay waxa walaalayaal meeshii la jooga waxa rabtiin anaan siinayo cuna ilmihi